yahay inuu dhan yahay baldadamidu wabaleeyahay waa xareedo waa xumbiyo kurs waa xalaarsin waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed xasan da'dayda waxaa weeye 25 jir geel baan ku shaqaystaa baqimaa la yidhaahdo geela waan dhaqanaa mar waan daajinaa marna dee waanu maalaayo macnaha caanihiisana dee marna waanu cabnaa marna waanu gadanaa inta badanna waanu gadanaa marka magaaladan caanihiisa geynaa magaaladan ka iibsanaa dee haddana macnaha wixii loo baahan yahay ee kale macnaha dhaqan ah baa macnaha loo baahan yahay ama irsaaqad ha noqoto ama dhar ha noqoto baanu kasoo iibsanaa caanihiisa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay maalgelin oo baahan waxay u baahan tahay wax ma garanaysaa ay moraalkoodu ma garanaysaa oo sax ku noqdo dhaqaale nidaam bay u baahan tahay kuwa badan iska danacsan baa jira oo haddii maalgelin loo sameeyo ama nidaam loo sameeyo xukuumadda caalamka oo la jaanqaadi lahaa oo hagaagi lahaa baa jira marka waxa weeyaan kulli iyada taas waa laga maarmaan geela barqamaalka magaalada kama fogaan karo marka xagga cunada iyo xagga biyaha iyo macnaha biyaha iyo xagga mooyaan sida kale way isku fiican yahay aad iyo aad u fiican tahay barqamaal waxaa looga jeedaa geela caanihiisa markii la gadahayo ee magaalada loo gadahayo caanihii oo dhayo saafiya in magaalada la geeyo oo laga gadaa la doonaya marka dambe listu gaadho waanu lisnaa isagana macnaha dad baa raaca oo daajiya dadna magaalada uu soo kacayo macnaha caanihii buu u soo qaadaa marka wuxuu u baahan yahay geel wuxuu u baahan yahay waxaan ugu baahannahay caanahan ka soo gadanaa geelu waa fiican yahay waa xoolo qaali ah shaqooyinka kaleeto ee la sameynayo oo dhan u qaalisan yahay geelu marka geelu laga maarmaayo dee caalamka oo dhan baa ku nool geelu marka dee lacagtaa waxbuu ku qabsanayaa ama wuu ku guursanayaa ama uu ka bac mushtarayaa wax kaloo siisanayaa wiilka geela hayaa caanihiisu soo maalayaa wuxuu ka buuxsanayaa dhowr jeerigaamo iyo jaagag ka buuxsanayaa marka maalinkii walbaba waa soo maalayaa maalinkii walbaba waa iibsanayaa caanihii waa istarayaan lacagtu waa dhigayaa caanihii marka waxay noqonayaan malaayiin bay maalinka dambe markuu bil markuu maarka uu gato أنا ما يبغى بدين دونا وبدين دونا وبدين دونا كلها لقوا مال وبدين دونا حتى أنا كنت سو جوا وحير بدنا ودوا وحير ما قدم بدنا هاي لعقت أيوة لعقت الشلي هو لعقت الشلي اسمه ولعقت الشلي سمعت وأقول عملتها في الشلي واقف جيلي بان كيمد عانيه الشلي تران ما أنت قاضي kuwa biri ana biri baa la qaadayaa kuwa maanta biri baa la qaadayaa marka kuwa shalayna haddaan qaatay haddana waa la noqonayaa geel baan aadayaa marka insha Allah geel beer buu ku jiraa iska nuucaysan yahay waa khayr marka waa sida caanaha la ii keeno oo freeshka ah oo geela beerta ku xareysan laga soo liso ma sha Allah waa caana tayo leh dad badan baa ku nool anigu waxa weeye waa ka ganacsadaa waxaan ahay hooyadii ka ganacsanaysay
lacag fiican oo aan ku qanacsanahay baan ka helaa maxaan kuu sheegay dad badan oo fara badanna waa ku nool yahay waa caano wanaagsan oo tayo leh oo caanihii baadiyaha laga keenayay ka sarreeya oo ka wacan oo ka wanaagsan weeye waa saas weeye haye caanaha subaxnimada la soo dheere haye mac salaama subaxnimada la soo dheere caanaha waa haye qaad jooga qaad jooga kalibu leeyahay marka waxa weeyaan geel laga maarmi kari maayo marka waanu badsanaa waanu iibsanay oo geel baanu dhaqanaa anagu caanaha geelu la mid maaha moota cuntooyinka kale way ka fudud yihiin way ka caafimaad badan yihiin waxa weeye lagamana maarmi karo waxa weeyaan xagga calooshana waa laasatiiba aad bay ugu fiican yihiin runtii wax weyn bay bini'aadanka ay faa'iidaha bay u leeyihiin ma garatay sanadka hadda soo socda inaan macnaha barqamaal hadda macnaha waa yar yahay laakiin inaan ilaa $3 inaan kor sii qaadaan jeclahay macnaha haddii macnaha layla garab qabto nidaamka iyo qaabka aan macnaha ay ii suurto gasho waxaan isleeyahay inaan kordhiyo oo badiyo oo macnaha oo caanihiisu ay magaalada caadi aan u dhex geliyo oo wax kuman ka helaan jecel